السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسو دوادا عشر كتحنها براشada Windows 10 فيديوغان أما كليبكان waxaan ku eegaynaa sida loo bedelo muuqaalka desktopka oo ah qaybtan computerka. Hadaa rabtid muuqaalka waxaad sameynaysaa dhanka midig ayaad ka gujinaysaa mouse-ka ama right click ayaad ku sameynaysaa. Marka taad sameysid waxa ku soo baxaya qaybahan waxaad gujinaysaa personalize markaad gujisid wuxuu ka kooban yahay qaybo kala duwan. Background ayaa ugu horeeya, waa qaybahan dhanka midigta, waa qaybo kala duwan aad ka bedeli karid computerka. Backgroundka waa meesha aad ka bedeli karid sawirka ugu weyn oo koowaad oo halkan ka soo baxaya. Markaad background click garaysid backgroundka hoostiisa waxaa saddex qaybood oo ah sawir ama picture baad u bedeli karaa oo sidoo hadda yahay ah. Waxaad u bedeli karaa midab oo pictureka waad ka wareejin karaa, midab ayaad u wareejin karaa. Waxaad kale oo u wareejin karaa slide show oo ah sawiro badan oo isbedbedelaya. Okay, sawir ayaa hadda jooga. Sawirku hadda joogo waa kan oo Windows ku yimi. waad ka bedeli karaa mid kale oo Windows ka yimi ayaad ku bedeli karaa, ama mid aad adiga leedahay ayaad ku bedeli karaa oo aad adiga soo download gareysatay oo computerka ku jira, ama sawir aad adiga leedahay oo computerka ku jira. Si aad taa u sameysid waxaad taabanaya browse markaad taabatid waxaad tagay meesha sawirka adiga kugu jiro baad tagaysaa. sawirkaas baad xulanaysaa markaas aad rabtid inaad soo gelisid. Markaas sida ka soo qaad waxaan rabaa sawirkan inaan geliyo. Markaad gelisid sawirka saas sawirkaagii buu isku bedelayaa. Meeshuu kii Windows ka ahaa kaad adiga xulatay ayuu desktopkaaga soo saarayaa. Meeshan choose a fit leh waxay ku tusaysaa saa rabtid sawirka inuu u soo baxo. Fill waxaa laga wadaa macnaheeda screenka buuxi, oo screenka dhan ayuu buuxinayaa sawirka. Waxaad ka dhigi karaa fit oo ah macnaha screenka intuu sawirka ka leeg yahay ka geli, inta kalena iska dhaaf. waxaad kaloo ka dhigi karaa stretch oo ah ku fidi oo ku buuxi screenka, macnaha ku stretch kare ha fill garayn laakiin ku buuxi oo qaybihiisa dhan gaarsii. waxaa kaloo ka dhigi karaa tile oo ah qayb uga soo bixi, intuu screenka la eg yahay sawirka soo bixi, inta kalena qaybaha kalena sawirkii uu ku buuxi. 3 ilaa 4 qaybood ayuu ka dhigayaa markaa sawirka. 4 qaybood ayuu ka dhigayaa Windows 10 sawirka 4 ayuu kala qaybinayaa. waxaa kaloo jira center oo ah computerka ama screenka dhexdiisa ka soo saar intuu ka leeg yahay, ama waxaad ka dhigi karaa spam oo la mid ah stretch laakiin sawirka un qaybta ugu weyn dhexda ka soo saar ka bacdi screenka intiisa kala gaarsii. marka taas waa qaybta koowaad oo backgroundka ah oo aad sawirkaaga ku xulan kadid ama sawirada Windows ku yimaada aad ku choose gareyn kadid iyo saad u bedeli kadid. kan labaad waxa weeye solid color oo color ayaad ka dhigi karaa desktopka. sida muuqata midab buu u bedelay, wax sawira kuma jiro. midabkaas oo aan bedeli karo hadda waa madow, waxaan ka dhigi karaa kii aan aniga rabo, jaale, green ama cagaar, ama wixii sidii aan aniga rabo. hadday kuwaan hore uusan anficina sawirada dhan ayaan soo saari karaa computerka, kaan rabo ayaan ka dhigan karaa. markaas kii markaa ugu habboon aan isleeyahay kaasaa kuugu habboon aad isticmaali karaa. midda saddexaad waxaad kaloo ka dhigi karaa slide show oo ah sawiro isbedbedelaya. markaad slide show taabatid second option aad taabanaysid waxaa weeye meesha ay sawiradaas ku jiraan oo folder, inaad folderka ay sawirada isbedbedelaya ku jiraan baad xulanaysaa. haddaad browse taabto sida hadda waxaan idin tusayaa sawirada aan hadda iigu jiraan kusoo download garay meeshay ku jiraan. marka waxaan haystaa folder oo
magaciisa yahay sawirada oo sawirro badan ku jiraan. Marka waxaan sameynayaa folderkaasaan xulanayaa marka wuxuu sameynayaa computerka folderka sawirada ku jira ayuu si isbedbedelaysa u soo saaraya. waxaan xulan karaa inta macnaha sida dhaqsaha qaybaha how quick ay sawirada isu bedbedelayaan. 1 minute aan ka dhigi karaa 10 daqiiqo 30 daqiiqo 1 saac 6 saac 1 beri. markii waqtiga la gaaro wuu isbedelayaa sawirkii. haddaan 1 daqiiqo aan xusho halkii daqiiqaba wuu isbedelayaa. waxaan kaloo samayn karaa shuffle aan odhan karaa si macnaha random sawirka u soo saar oo isku dhex qas isagoo qasan midba mar soo saar. haddaan sidaan u dhaafo kan ugu horeeyo ka bilaabaya kan ugu dambeynaya sidii uu sidaas isu bedbedelaya. laakiin shuffle waxa weeye isku dhex qas. marka uu battery computerkaaga isticmaalayo waxaad samayn karaa on waa ka dhigi karaa sawirada uu isbedelay. by default hadduu computerkaaga battery isticmaalayo sawirada isma bedbedelayaan si uu kuugu badbaadiyo energyga computerka uusan isla markiiba batteriga u dhammaan. sidaa hore usoo aragnana qaabka aad rabtid inuu sawirada usoo baxaan uunbaad aad xulan kadhaa oo waxay la mid tahay tii aan hore usoo aragnay. kaas waxaa halkaa ku eg qaybta backgroundka. qaybta labaad waxa weeye start menuga ama screenka siduu u egyahay sawiradiisa iyo qaybihiisa macnaha midabkiisa siduu u egyahay. sida hadda u muuqata waa midab madow iyo qoraalada ama applicationska oo cad si ay isaga dhex muuqdaan. marka taasna waad bedeli kadhaa. waxaad samayn kadhaa haddaad tagtid color waxaad ka dhigi kadhaa hadda sida muuqata windowska waa madow waaba kaas wuxuu ku tusayaa qaab madowga. applicationkana waa cadaan oo kalarkooda wuu cadcad yahay si waa madowga uga dhex muuqdo. transparentigana on weeye oo micnaheedu yahay labada kalar ha isku dhex qasin midba midka kale ha ka dhex muuqdo. marka waxaan samayn karaa haddaan windowska light ka dhigo sida idin tusaya taskbarkii light uu ka dhigay. applicationkiina isla markiiba si automatic uu u bedelay si isaga dhex muuqdaan uusan labada kalar isugu qasin oo qoraalkii dark ka dhigay isagoo u sameeyay color yaryar oo border oo accent u sameeyay. marka waxaan samayn karaa oo kale custom color ayaan choose garayn karaa oo kan cadaan iyo madow dark iyo intuu isiin lahaa waxaan odhan karaa custom iga dhig. markaan custom ka dhigo wuxuu isiinayaa option aan markaas colorka midabka u bedelo. dee markaan kasoo tagno coloradaas iyo transparentiga waxaan kaloo samayn karaa accent color ayaan choose garayn karaa. accentiga waxaa laga wadaa macnaha qaabka sawirada ay uga soo baxayaan labada sawir oo isla isku dhex daray dhexdooda. marka waxaan samayn karaa ama windowska odhan karaa accentiga adiga choose garayso automatically sidaa rabti ka dhig ama anaa ka dhigan kara sidaan aniga rabo oo sawirkan aniga rabo ayaan gashan karaa as an accent color. marka haddaan xusho cagaar accentiga markaas sidaa ujeedaan wuxuu ka dhigayaa cagaar midab cagaara ayuu ka soo saaraya. haddaan rabo accentigaas title barska iyo borderska iyo waxaasoo dhanna waa raacsiin karaa isaga hataa accenti u yeel ayaan odhan karaa. haddii aan badbedelo sawiradan aan rabo inaan dib ugu noqdo aanan ka helin aan rabo dib inaan ugu noqdo siduu ahaa iyo waxyaalahan oo dhan aan badbedelay waxaan samayn karaa taasoo waxaan taabanayaa themes markaad tagtid waxaad taabanaysaa haddana windows themes. markaa dib ayuu ugu celinayaa computerka siduu u ahaa settingkiisii originka ahaa uu ku yimi ayuu dib ugu celinayaa markaas.
markaan ka soo tagno midabka bedeladiisa waxa ku xiga screen lock-ka screen lock-ka waxa weeye waa screen-ka hore daaqada hore intaadan gelin oo furaha aadan gelin computerka ka soo baxaysa marka daaqadaas qaabka u egtahay iyadana waxaan ka bedeli karnaa lock screen marka lock screen taabatid wuxuu ku siinayaa sidaan hore u aragnayba laba option oo ah slide show inaad ka dhigtid oo sawiro isbedbedelaya aad ka dhigtid oo aad markaas meesha ay ka imaanayaan aad adiga awood u leedahay inaad xulatid sidaan hore u sheegnaba folder ayaad gelin kadhaa halkan oo sawiro kugu jiraan marka si ay sawirada isu bedbedelaan amase waxaad samayn kadhaa Windows Spotlight-ka ayaad oran kadhaa sawirada ha ka yimaadeen oo Windows Spotlight-ka waa sawiro ku yimaada computerka oo iyagu markaas isbedbedelaya iyagana ama waxaad samayn kadhaa oran kadhaa picture hal picture waan isbedelayn hay ahaado picturekaas oo noqon kara kuwa ku yimaada Windows-ka ama samidaad adiga soo xulatay oo computerka ku jira sidaan horeba ugu aragnay waa isku qaab browser taabanaysa sawirka rabtid baad xulanaysaa markaas haddaad rabtid waxyaala Windows-ka ay soo direen oo tips ama si wax loo sameeyo ama waxyaalaha cusub si uu kugu soo saaro computerka oo locked onaad ka dhigi kadhaa haddaad rabin off ka dhigi kadhaa waxaa kaloo samayn kadhaa applications ayaad samayn kadhaa inay kasoo baxaan computerka isagoo locked sida calendarka oo kale ama messaging-ka ama clock-ka ama cimilada weather-ka waxyaalahaas oo kale waa kasoo saari kadhaa marka haddaan rabo hadda halkan oo kale weather-kan yidhi kasoo saar calendarka kasoo saar email waxaan kasoo saarayaa oo kale alarm and clock messaging haddaan rabo inaan aanan kasoo saarin mid qaybahan ka midna waxaan waa taabanayaa naana oranaya si aan uga tirtiro ayaan usoo bixin kan wuxuu ku oranayaa lock macnaha show the lock screen background picture on the sign in screen marka sign in screen-ka joogtid macnaha sawirka soo saar oo background-ka kaasna waa inuu on ahaada si uu markaa sawirkaas usoo baxo kaas wuxuu ahaa lock screen qaybta ku xigta waa theme aan yarad horey u aragnay theme-ka waa qayb iswadata waa sawiro iswata oo wata midabkooda iyo macnaha kalarada iyo qaabku u egyahay start menu iyo application menu iyo sawirada ama midabka applicationska iyo Windows-ka background-ka iyo waxyaalahaas oo dhan waa qaab iswata oo isku habaysan oo Microsoft u soo saaray aad bedeli kadib marka kan ugu horeeya themes waa kan ay ku timaado oo Windows-kaas ugu horeeya ama mid kale ayaad xulan kadhaa ana dhowr qaybood oo kala duwan ayay by default ku siiyaan aad kala bedbedelan kadib marka mid bedeshid waxa ku soo baxaya qaabku u egyahay iyo sawirka background-ka qaabku u egyahay iyo sidoo isu bedbedelayo haddaad rabtidna waxaa jira themes aad kasoo download garayn kadib online aad ku xidhi kadid marka waad raadin kadhaa haddaad rabtid themes cusub inaad computer ku xidhid waad samayn kadhaa themeskana halkaasaan uga gudubno fontiga waxaa weeye qoraalka computerkaaga siduu u egyahay waad bedeli kadhaa waad waaweynayn kadhaa ama waa yaryarayn kadhaa ama mid siduu fontiga computerka usoo saaro waad samayn kadhaa halkaas ayaa ka bedeli kadhaa halkaa hadda waxaan ku sheegnay qaybo ka mid ah sida loo bedbedelo computerkaaga desktopkiisa waxaan fiirinay background sida loo bedelo sawirada ama sida loo bedelo lock screen-ka themeska fontiga
marka haddaba clipkan intaasaan ku joojinaynaa clipka ku xiga waxaan ku eegi doonaa start menu iyo taskbar oo sida looga bedelo personalizationka sida loo bedelo oo loo habeeyo oo qaabka rabtid aad ugu ekeyn kadib ayaan ku eegaynaa marka clipkan intaasaan ku joojinaynaa la soco clipka ku xiga insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.